bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacaana wanaagsan daawadal kusoo dhawaada warka barkulan media qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siday gudoomiyihii gobolka sheegeen in si aada loo garaacay ninka madowga ah waxaana sidoo kale booliska magaalada georgia ay sheegeen in ninka dhibkan geystay gacanta lagu haysta markaana shaqadii laga joojiyey bayaan ka soo baxa xafiiska booliska degmada Clayton ayaa waxa uu yiri sarkaalkii sida uu u garaacay Rodrick Walker waanu haynaa shaqadiina waa laga joojiyay kadib markii awood xad dhaaf u adeegsaday ninka madowga ayuu yiri sarkaalka ciidanka booliska ee gobolkaasi Frederick waa 26 jir waxaanu saarnaa baawur xilligii boolisku ay qaadayeen kadib markii lagu eedeeyay in gaarigu la socday uu nalka dambe uu ka jabsanaa waxay arrintan jimcihii ka dhacday meel ku dhow garoonka diyaaradaha lagu magacaabo Hallsville Jackson Atlanta xilli Mareykanka ay ka taagan tahay xiisadii ka dhalatay laba tacadiyo loo geystay dad Mareykan madow ah iyadoo tii ugu dambeysay ka dhacday gobolka inta badan ay ka dhaceen rabshadaha ee Minnesota boolisku waxay ninka madowga ah weydiiyeen inuu tuso aqoonsiga ku kaxeynaya baabuurka xilligaasna ma uusan wadan laysanka waxaana sidaas yiri qareenkii u doodayay ninkan isagu cadaanka ee falkan ku dhaqaaqay waxaana uu sheegay inuusan haysan aqoonsiga oo lagu kaxeeyo baabuurta isla markaana looga baahnayn maadaama uusan kaxaynaynin baabuurka qareenkiisa ayaa sidoo kale sheegay inay murmeen kadibna ay legdeen sidaan ay keenteen arrintan ay ka farabaxsato booliska isla markaana la garaaco ninkan waxaana ka dhawaajiyay in macaamilkiisa laba jeer uu miyir doosoomay balse waa uu beeniyay in halkan sarkaalka uu qaniin la dhacay ninkan muuqaal la soo geliyay baraha bulshada waxay muujiyeen in Walker oo isagu si aad u xanuunsanay isla markaana aanu kici karin garaacisna uu ku wada ninkan booliska ah dareenkayga ku aadan muuqaalku wuxuu yahay in nasiib darro ay tahay inay aad aragto dhacdo dadka madowga Mareykanka ee ku xadgudbaya xuquuqda dadka wariba saraakiil sharciga qaabishan kuwaasay shaqadoodu tahay inay u adeegaan shacabka ilaaliyaan ayuu yiri Mr. Williams oo ah ninka u doodaya ninka la garaacay Walker waxaa loo haystaa inuu horjoogsaday saraakiisha weliba inuu u geystay qalalaase sida ay ku warantay wakaaladda wararka ABC bishii la soo dhaafay Mareykanka waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliska gaar ahaan sida booliska ula dhaqmeen dadka madowga Mareykanka ah bishii May George Floyd oo ku dhintay Minneapolis kadib markii sarkaal boolis ah qoorta ka saaray jilibka waxaa dhimashadii horseeday dibadbaxyo ballaaran ka dhacay meelo badan oo ka tirsan caalamka dhawaan ahayd markii boolisku ay barbaaxo ay dhabarka xabado kaga dhufteen Jacob Palaka oo ah nin madow ah isna dhaawiciisu haatan ula jiifo isbitaal ku yaala dalka Mareykanka Mareykanka ayaa saraakiisha xuduudaha ku amray inaysan ogolaan dalkaas in la soo geliyo shahaadada ay waxyaabaha lagu farsameeyo dalka Shiina shahaadadaasi waxaa ku jira kala baalay qaybo ka mid ah kombiyuutarada iyo qalab kale oo lagu farsameeyo gobolka Xinjiang ee dalka Shiina labadan ay qaaday dawladda Mareykanka ayaa maamulka Trump oo cadaadis ku saaray dawladda Shiina gaar ahaan arrimaha la xiriira sida dawladda dalkaasi oo la dhaqanto dadka muslimiinta laga tirad badan yahay ee ku dhaqan gobolka Xinjiang muslimiinta dalka Shiina ayaa qasab ugu shaqeeya warshado shisheeye taasoo dawladda dalka Mareykanka ka caarisay arrintan dawladda dalka Shiina ay ku dhaqaaqayso Mareykanka ayaa sheegay in muslimiinta gobolkaasi lagu hayo xariyo isla markaana loo adoonsado isla markaana si xooga loogu shaqeysto warshado ku yaala gobolka si ay u soo saaraan waxyaabo macaash u ah dawladda dalkaasi dawladda Shiina ayaa la wareysan yahay inay u xiran yihiin in ka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo ka tirsan muslimiinta gobolka Xinjiang hase yeeshee dawladda Shiina ayaa sheegtay in bartilmaameedku yahay mid dadka xariyahaasi ku jira lagu barayo aqoon badan oo ka mid yihiin sida ay diinta islaamku aysan argagixiso aysan ugu noqon isla markaana ay ka fogaadaan halista kooxaha muslimiinta ay waliba go'aansatku gobolka ay ku doonayaan ummadda Washington ayaa sidoo kale Beijing waxay ku eedeysay dhowr jeer inay isku dhacyo arrimo la xiriira barnaamijka Shiina waxaana Mareykanka oo dawladda Shiina ku eedeeyay inay ku tumato xuquuqda aadanaha dawladda dalka Shiina ayadnakeedu waxay sheegtay waxyaabaha laga soo raray dalka Mareykanka isla markaana iib ahaan loo geeyo dalka Shiina canshuur xad dhaaf ah la saaro taa oo ka dhigaysa 50% madaxweynayaasha dalalkaasi Mareykanka Shiina ayaa inta badan siyaasadooda haatan ay maraysaa mid aad u sareysa waxaana laga cabsi qabaa in xiisadan ay ka dhalato gacan ka hadal labada dal ku dhexmara biyo Mareykanka dalkaasi Kuuriya oo Kuuriyada Koonfureed
dowladda maraykanku ay si aada xeebaheeda u ilaaliso, halka dowladda shiinuhuna ay sheegtay in kuuriyada koonfureed weliba taiwan ay ka tirsan tahay dalyooga shiinaha. madaxweynaha dalka maraykankana waxa uu sheegay in tallaabo kasta dowladda dalka shiinaha ku doonaysay taiwan ay xoog kula wareegto ay dowladiisu ka hortegi doonto. digniin cusub ayaa laga soo saaray deegaanada ku dhow dhulka uu qabsaday dabka sida aadka xoogga looga kacay qaybo ka mid ah 3 gobol oo ku yaala dalka maraykanka. gobolada Washington, Oregon iyo weliba California ayaa weli la tacaalaya dadka mas'uuliyiinta ka dabka qabsaday dhulka keymaha kaasi oo la sheegay inay ku dhinteen ku dhawaad 33 qofood. hay'adaha qaabilsan cilmiga dalka maraykanka ayaa digniin culus ka soo saaray in dabkan uu ku sii faafi karo gobolada Oregon iyo weliba California, waxaana sheegay in dabaylo roobab wata ay ka jiraan goboladaasi, waxaana si weyn u caawin karaa baa la yiri in dabka uu si fudud uga sii gudbo dhulka baaxad leh haatan uu ka kacayo. xisbiyada mucaaradka dalkaasi, kooxaha dadka iyagu qaabishan ka hortaga dabka ka kaca dalka maraykanka gaar ahaan kuwa dabdamiska loo yaqaan ayaa gurmad waxay u fidiyeen dadku dhibaatada ay ka soo gaartay goobahan keymaha dadka iyagu ku noolaa, waxaana dowladda dalka maraykanka u sheegtay in goobaha loo diray diyaaradaha helikabtara si ay u buufiyaan dabkan xoogga leh ka kacaya qaybo ka mid ah keymaha ku yaala 3 gobol ee sida la sheegay sida aadka ugu sii faafaya keymaha ugu waaweyn ee magaalooyinka Washington, Oregon iyo weliba California. 3 maayor ee goboladaasi ayaa waxay sheegeen iyagu ay diyaariyeen dad iyagu la tacaali doona dabkan sida looga hortago xawliga ku socda, waxaana dowladda dalka maraykanka uu sheegtay in la soo saaray digniino ku saabsan in dabkan uu sii faafi karo. waxaa la sheegay in inta badan dadka ku dhintay dadka gaaraya 33 qofood iyagu ahaayeen dadka agdhowaa dhismada ku lahaa goobaha dabkan uu ka kacay. dhinaca kalena xukuumadda militariga ee dalkaasi Soomaaliya toddobaadkii soo dhaafay hal kula jiray mucaaradka iyo weliba ururada bulshada rayidka ayaa waxay ku dhawaaqeen inay go'aansadeen in xilka ku wareejiyaan muddo 18 bilood kadib. urur goboleedka galbeedka Afrika ay ku jiraan 15 wadan ilaa hadda militariga dalkaasi waxay ku qasbeen xukuumad rayid loo soo dhiso dalka Mali si ay u soo magacaabaan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne xilliga kala guurka dadkana u diyaar garoobaan doorashooyin madax bannaan cidii doonaan ay ku soo doontaan. Colonel Azimi Goita oo hogaamiyaha ciidamada dalkaasi Mali ayaa xukunka inqilaabka kula wareegay 18 bisha Agoosto. waxa uu sheegay in dhankooda sameeyeen tanaasul isla markaana militariga markii hore doonayeen xilka ay hayaan muddo 3 sano. xisbiyada mucaaradka ayaa hore u soo dhaweeyay inqilaabka looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Ibrahim Bokor Keita, balse diidan in militariga uu sii hayo xilka dalka. uguna badan xisbiyada mucaaradka intooda badan waxay u soo jeediyeen in ugu badnaan 8 bilood xilka ku wareejiyaan askarta xoogga kula wareegtay talada maamulka dalkaasi Mali. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku qoray in uu jawaab adag u ka bixin doono isku day walba oo dowladda Iran ay ku doonayso inay ku soo weerarto dalkiisa. hadalkan Trump ayaa yimid kadib markay soo baxeen warar sheegaya in Iran ay doonayso inay iyadoo dilka safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka South Africa lagu magacaabo Lana Markis. weerar walba oo ka yimaada Iran nooca doonadba ha ahaadee looga soo horjeeda danaha maraykanka waxaa looga jawaabi doonaa weerar lagu qaado Iran. kun jeer oo ku celcelisa ayuu madaxweynaha dalkaasi Trump bartiisa Twitter-ka ku qoray arrintan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran Zaid waxa uu beeniyay wararka qorshaha inay doonayaan inay ku dilaan safiirka dowladda dalka maraykanka u fadhiya Koonfur Afrika. waxaa la sheegay in Iran ay qorsheynayso inay disho safiirka maraykanka Koonfur Afrika muddo dheer oo saaxiibo la madaxweyne Trump si ay uga argoosato dilkii General Qasim Soleimani oo maraykanka u geystay dilka bishii January ee soo dhaafnay. General Soleimani ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cirka ah oo diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen garoon ku yaala magaalada Baghdad. maxkamadda dalkaasina waxa ay sheegtay iyadoo ay doonayso in wax badan laga qabto xaaladaha ka jira dalka. dhinaca kalena maxkamadda dastuuriga dalka Ivory Coast ayaa diiday in madaxweynihii hore dalkaasi Laurent Gbagbo iyo ra'iisul wasaarihii dalkaasi inay isu soo sharaxaan mar kale inay qabtaan jagada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dalkaasi. guddiga doorashooyinka ayaa hore u sheegay in labada mas'uul laga aqbali doonin inay isu soo sharaxaan jagada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi. marsii horeysay dibadbaxyo ayaa ka dhacay dhowr magaalo kuwaas oo looga soo horjeedo go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara oo ku gaaray inuu mar saddexaad u tartamo doorashada taasoo u ogolayn dastuurka dalka Ivory Coast.
dowladda dalkaasina waxay sheegtay in kumanaan kun oo qofood loo soo xiray dibadbaxyo ka dhacay magaalada caasimadda waa dalkaas Ivory Coast waxaana sheegeen in go'aanka ay qaadatay maxkamadda dalkaasi ee ah in madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara uu mar afraad soo sharaxi karin in madaxweynuhu ka noqdo dalka Ivory Coast. go'aankan ayaa waxaa soo dhaweeyay waxaa mucaaradka dalka Ivory Coast waxaana lagu wadaa bilooyinka soo socday doorashooyin madax bannaan ee ka dhaca. waana ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo daawashada warkeena wixii warbixino iyo talooyin ah inoogu dhaafa barta commentiga si aan u ogaano warbixinada muuqaalada aan soo dhigno inay cajab gelin kale sidoo kale like share comment ka maqnaa halkani waa Barkulan Media.